maad maqashay weli mid ka mid ah xanuunada ugu badan ee bani aadamka iyo dhalinyarada casrigan ku dhaca oo la yidhaahdo FOMO waa fear of missing out ama alkhawf min atafwiit qofku wuxuu ka baqanayaa waxbaa ku dhaafi dhalinyarada xanuunka ugu badan ee hadda hayaa waa kaa weeya in looga digana tahay la baraarujiyana way tahay waxa laga yaabaa wuxuu qabsan lahaa iyo wuxuu isu geysan lahaaba wuxuu tawahumayaa oo ismoodsiinayaa in uu jiro wax dhaafaya ama ka tegaya wuxuu isleeyahay waxa inta daba socoto waxana ku dhaafi waxa inta daba socoto kana ku dhaafi dib uu istaagaya dhammaan tajaarubtii wuxuu isku day lahaa wuxuu sameyn lahaa oo dhan waxa ka hor istaagaya FOMO fear of missing out habaqanin quraanka hadda la khado gabiga khawfka meesha waa laga saaray alla ka cabsiga mooyaa la takhaf ya Musa aqbil wala takhaf cabsida halkaas ka dhigo tajaarubta isku day ninbaa wuxuu yiri asbaab najaax waxa kamid ah qaacidadaasi طبعا cid kor ma fahmi karaan aqal badan ma fahmi karaan wuxuu yiri hadaa doonaysa inaad najaxdo naftaada baxar galiba warid nafsak yiri mar walba baxar iskaliso wad mashaakil dhaxda u fariisato dhamaan awoodaada iyo maskaxdaada iyo waxa haysa waxa iskugu imanaysaa sidii mushkilada kala bixi lahayd saad mushkilad bacda mushkilad uga baxaysa najaax bad gaaraysaa wad guuleysanaysaa la baqin row soco hadaad guursanin guurso hadaad shaqaysanin shaqayso hadaad cilmi baran gal ha fariisanin ee ka kac aad baad u mahadsantihiin